sagaal sirood oo aad ku soo jiidan karto gabadh kasta oo aad rabto. Ujeeddada aan ka leeyahay xogtaan muuqaalkan kuugu sheegi doonaa waa inaan kaa caawiyo sidii aad u soo jiidan lahayd qofka aad rabto inaad noloshaada inta ka dhiman la wadaagto. Adigoo keliya ayaa ka mas'uul ah ficilada aad samayn doonto kadib markaad xogtan isticmaasho. Sidoo kale keliya ayaa ka mas'uul ah natiijada xun ee ka dhalan karta haddii aad xogtan si qaldan u isticmaasho. haddii aad rabto inaad si xaraamaadsi ama madadaalo ah aad gabdho badan u soo jiidato, fadlan ha sii daawan muuqaalkan waxaan si kooban kuugu soo gudbin doonaa tallaabooyinka ugu muhiimsan ee kaa caawin kara inaad soo jiidato gabdho aad u badan adigoon dadaal aad u badan sii samayn. 9 sirood oo aad si dhaqso ah ugu soo jiidan karto gabadh kasta oo aad rabto. 1. Iska dhig qof aad u cajiib ah oo qaali ah. Habluhu ma jecla ragga iska caadiga ah. Sidoo kale qofna ma jecla wax raqiis ah oo meel kasta laga heli karo. Dadku waxay iPhone-nada u iibsadaan, lacag badanna ugu kharash gareeyaan, sababtoo ah waa wax dhif ah isla markaana qaali ah. Marka ugu horreysa ee aad la kulanto gabadha aad jeceshahay, iska dhig qof cajiib ah oo bini'aadanka ka sarreeya. Waa inaad u muuqataa qof gaar ah oo gebi ahaanba ka duwan qof kasta oo ay hore ula kulantay. Sidoo kale waa inaad waadax ka dhigtaa inaad tahay qof special ah. Ha iska dhigin nin jilicsan. Rag badan ayaa iska dhiga kuwa aad u daciif ah markay gabadha la sheekaysanayaan, kuna raaca wax kasta oo ay gabadhu tidhaahdo. Waxay u maleeyaan in habka ugu fiican ee lagu guulaysto qalbiga gabadhu uu yahay inaanad gebi ahaanba wax loolan iyo iska caabin ah tusin. Waxay si su'aal la'aan ah u aqbalaan wax kasta oo gabadha afkeeda ka soo baxa. Taasina waxay kugu sababi doontaa inay gabadhu kuu tixgeliso saaxiib iska caadi ah. Waxaanad u noqonaysaa nin yaasmaan ah, sababtoo ah waxaad ku raacaysaa wax kasta oo ay samayso iyo wax kasta oo ay qabato. Qiimaynta ay qalbigeeda ka samaynaysana waxaad ka noqonaysaa qof aan xiisa lahayn, madax ah, jilicsan, isla markaana aan lahayn awood uu ku cajabin karo, kulana loolami karo. Weligaa ha u riyaaqin ama ha la dhicin inta badan ee ay gabadhu u malayso inay muhiim tahay oo ay tusaale ahaan soo jiidasho badan leedahay. Waxaa aad u badataa inay ka xiisa dhacdo kuwa ka daba dhaca ee aadka ugu riyaaqa. Tus gabadha isku riyaaqsan inaanad haba yaraatee adigu la dhicin. Waxaanay bilaabi doontaa inay ka yaabto sababta aad adigu ugu riyaaqi weyday ee aad kaga duwan tahay dadka kale. Taasina waxay ku sababi doontaa inay wax badan kaa fikirto. Mar kasta oo uu qofku wax badan kaa fikirana, waxa aad u suurtagal ah inuu kugu soo dhowaado oo uu kaa helo. Badanaa u muuqo qof aan sidaa u sii xiisaynin. Markay gabadhu aaminto in qof aad uga helay oo uu aad u xiisaynayo, waxay bilowdaa inay diiradda saarto qofka xiisaynaya galdaloolooyinkiisa iyo cilladihiisa. Waxaanay isweydiisaa inay qofka dhab ahaan u rabto iyo in kale. Dhinaca kale, marka uu qofku u muuqdo mid aan la gaari karin oo aan si fudud lagu soo jiidan karin, wuxuu u muuqan doonaa mid soo jiidashadiisu aad u badan tahay. Weligaa gabadha gaadhsiin heer ay aaminto inay ku guulaysatay inay ku soo jiidatay oo ay qalbigaaga qabsatay, balse sidaa beddelkeeda mar kasta ha ka yaabto oo ha ka fikirto inaad ka heshay iyo in kale, ilaa ay gaadho heer ay aad kuugu soo xidhanto. U sheeg inaad qorshaynayso inaad adduunka qabsato. Dumarku waxay jecel yihiin ragga hamiga sare leh iyo dabcan kuwa taajiriinta ah. Xataa haddii aanad taajir ahayn, haddana waad soo jiidan kartaa gabadh adigoo soo bandhigaya hami aad u sarreeya. Kala hadal qorshayaashaada mustaqbalka, kana dhig qaar u muuqda inaad noqonayso ninka beddeli doona ninka adduunka ugu taajirsan ee Bill Gates. Weligaa ha noqon qof baahi badan. Markaad muujiso baahi aad ah ama aad dareensiiso gabadha sida aadka ah ee aad ula dhacday, waa inaad ogaataa in 99% aad u dhowdahay inaad gabadha weydo. Dumarku way necab yihiin ragga baahida badan, sababtoo ah waxay aaminsan yihiin inaanay sidaa muhiim u sii ahayn. Barow sida wax loo iibiyo. Markaad noqoto mid wax iibinta ku fiican, waxaad awood u yeelan doontaa in badeecadda aad iibinaysa aad ka dhigto mid aad u cajiib ah oo muhiim ah. Waqtiganna badeecadda aad iibgeynaysaa waa adiga naftaada. Markaad barato sida loo iibgeeyo naftaada ee qof kale la iskaga dhaadhiciyo, waxaad awoodi doontaa inaad gabadha tusto qiimaha ay agtaada ka heli doonto markay ku hesho. Horumari xirfadaada dad qancinta oo baro sida dadka looga dhaadhiciyo inay ku aaminaan. U labiso sidii wiil boqortooyo oo kale. Muuqaalku waa wax aad u muhiim ah. Warka fiicanna wuxuu yahay in dharku uu yahay qayb ka mid ah muuqaalka. Ha gashan oo keliya dharka istaylka ah, balse sidoo kale xidho dharka markaad gashato kaa dhigaya qof awood leh, xooggan, isla markaana special ah. Waxaan rajaynayaa inaad tallaabooyin ka raaci doonto. Haddii aad hayso tallaabooyin dheeraad ah iyo siro qarsoon oo aad adigu og tahay, fadlan nagula wadaag qaybta commentiga. Sidoo kale subscribe saar channelkeenan, notification-kana furo si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada dambe.